الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. walaalaha sharafta iyo qiimaha badan ahlu khayrka ay dhegeysanaya markasta ilaahna wada xifdiyo wixii shar ah oo muuqda iyo waxaan muuqan oo viruskaasi coronavirus uu ka mid yahay ilaaha naga qabto. inta xanuunsan ilaahay waxaan weydiinaynaa shifaa caajil ah ilaahay inuu siiyo. inta ku dhimatay ilaahay inuu cafiyo oo dembigooda uu dhaafo oo min ahli aljannati alfirdows alaclaa ilaahay uu ka dhigo, allahuma aamiin. inta weli uusan soo gaarin ilaahay ha ka ilaaliyo, ilaahay ha ka fogeeyo, ilaahay kuma rido iyaga, ehelkooda, qaraabadooda dhammaantood, allahuma aamiin allahuma aamiin. intaas kadib waxaan rabaa barnaamijkan oo kooban dhowr su-aalood oo ka imaanayo bulshada ahlu khayrka muslimiinta oo zakaatulfitriga ah iyo salaada ciidi inaan soo koobo. zakaatulfitriga barnaamijkeena waa ilaa 23 daqiiqo, 7 wuu istaagayaa. zakaatulfitriga marka hore saa ula socotaan kelmada zakaa waa tahirid waay. nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu noo sheegay xadiis oo cabdullaahi ibni cabaas uu warinayo, wuxuu leeyahay tuhra lisaa'im min allagwi waalrafdi. marka zakaatulfitriga aad saa u bixiso wixii dhaadhac ahaa oo kaa dhacay ama hadal kaa soo baxay oo munaasab ahayn ama khalad ahaa ama dembi uu noqon kari, iyo wixii dhaadhac ah oo dhegahaaga ay maqleen ama indhahaaga ay ku dhaceen, waxaa tirtirayo oo nadiifinayo zakaatulfitri. horta taas waa fadligeeda waay inay dadka muslimiinta ay ogaadaan. midda kale zakaatulfitriga xukun ahaan ma waajibba ma sunna ma maaragtay mustaxaba oo muakada miya, sunna muakada maya, zakaatulfitriga waa waajib. marka su-aasha ku xigta waxa waaye yay waajib ku tahay? waxay waajib ku tahay qof kasta oo laga helay 2 shardi. shardiga koowaad islaamnimo oo ah qof muslim ah inaad tahay. shardiga labaad in qofka oo uu awood u leeyahay inuu iska bixin karo zakaatulfitri. awooddaasna waxaa la fiirinayaa maalinta ciidda qofka inuu haysto, qofka zakaatulfitriga ay ku waajibayso inuu haysto wuxuu cuni karo ilaa habeenkeedii, isaga hadduu qoys yahay, isaga iyo familka oo dhan. marka zakaatulfitriga ah waxay ku waajibaysaa marka cid kasto, da' kuma xirno, ilmaha way ku waajibaysaa, qofka weyn way ku waajibaysaa. marka waa cid kasto ayay ku waajibaysaa oo labadaasi shardi oo laga helay. qofka xitaa caaqil hadduu yahay, waxaan ula jeeda qofka hadduu waalan yahay xitaa zakaatulfitriga way ku waajibaysaa. dadkii wakiil oo mas-uulka ka ahaa ayaa ka bixinayo, ilmaha cidda mas-uulka ayaa ka bixinayso. marka zakaatulfitriga waxaan culummada badanaa waxay ka hadlaan waqtiga ay waajibtaa in la bixiyo. waqtiga waajib ay tahay waa in la bixiyo. waqtina waxa waaye waqti ay mubaax tahay in la bixiyo, ay banaanta in la bixiyo. waxaa waajiba in la bixiyo salaada maqribka ee habeenka ciidda markay qoraxda ay dhacdo way waajibaysaa zakaatulfitri. cid kasta oo waqtigaas nool waajibay ku tahay inuu zakaatulfitri uu bixiyo. markaasi waxaa waajibnimadaasna waxay soconaysaa ilaa salaada ciidda laga tukanayo. lidaalika nabiga calayhi salatu wasalaam xadiis ayaa wuxuu ku leeyahay waqtigaasi marka laga soo bilaabo oo salaada waxaan ula jeedaa maqribka qoraxda ee dhacday ilaa salaada ciidda inta u dhexaysa qofkii bixiya wuxuu gutay waajib. zakaatulfitrigana way ka dhacaysaa. laakiin qofkii waqtigaas dhaafo oo bacda salaat alciid uu bixiyo zakaatulfitriga, rasuulku wuxuu ku tilmaamay sadaqa min asadaqaati inay tahay sadaqa caadi aad bixisay
zakaatulfitrigana dhaafidda adoo awood leh oo aad dhaaftayna aafima ku noqonaysaa, macnaa dambiilaad ku noqonaysaa, dembi dhaaf ilahay inaa weydiisa waaye. afwan su-aasha ku xigto waxay noqonaysaa zakaatulfitriga maxaa la bixiyaa. marka xadiis waxaa jiro cabdullaahi ibni cumar iyo xadiis abaa saciid alqudriy. labadaas xadiisa inta badan la xusaa. labadaba waxay sheegayaan iyadoo kooban in tacaamka raashinka meesha oo quutulyoomka u ah in la bixiyo. asalka waa sidaas, culummada badankooduna saasay qabaan. marka laga soo reebo culamaa ulmucaasir iyo alxanafiya, waxay qabaan booska raashinka in lacag la gelin karo oo qofka lacag uu bixin karo. sidaa daraaddeeda maraykanka oo kale waxaa lagu qiimeeyey maaragtay $10. marka qof ayaa waxay weydiinaya lacag ma lagu bixin karaa? jawaabta waxa waaye haa, lacag waa lagu bixin karaa. xanafiyada keliya ma qabto, culamaa ulmucaasir, fuqahaa almucaasirna way qabaan. sababta keentana waxaa waaye waxaa la yidhi lacagta booska waxay geli kartaa qofkii maaragtay asalka waxay ahayd tacaam. hadda kasoo qaad oo kale culummada salafu saalex waxay ogolaadeen, salafu saalex culummadii hore ahayd waxay ogolaadeen in waagi hore marka xadiiska ibni cumar oo kale wuxuu tilmaamayaa rasuulka inuu dhahay hala bixiyo zakaatulfitriga, raashin ha lagu bixiyo. markaas timirtuu tilmaamay nabiga calayhi salatu wasalaam. waagaas marka timirta waxay ahayd raashin ahaana loo quudan jiray, laakiin markaas kadib culummada waxay dhaheen raashinka wuu ka baxay quutul yowm inuu noqdo, wuxuu noqday fawaakih oo kale. markaasaa waxay iftoodeen culummadii dambe inay dhaheen timir oo nabiga uu sheegay calayhi salaam raashin ma aha markuu ku baxdo, laakiin wixii raashina la raadinaa. baasto waagaasi ma jirin, laakiin hadda baasto oo kale waa lagu bixin karaa zakaatulfitr. meeqa kiilaa la bixinaa marka? waa 2 kiilo iyo bar, laakiin culummada waxay dhaheen waxaa safe ah oo aad ku nabadgelaysaa 3 kiilo oo bur ah ama 3 kiilo oo bariis ah ama 3 kiilo oo baasta ah halkii qof in laga bixiyo. markay tahay lacagna haddii loo qiimeeyo waxaad bixinaysaa lacagta hadda la qiimeeyo waa $10 qofkiiba. waxaa imaan karta su-aal ah dadka lagu bixinayo 8 asnaaf oo suuratu tooba ay sheegto zakada maaragtay xaqa u leh maa la siinayaa mise dad gooni ah? 8daasi xaq ayay u leeyihin dheheen culummada maadaama nooc min azakaha ay tahay. laakiin imaamka ibnu taymiya wuxuu yiri waxaa fadli badan in la siiyo fuqarada iyo masaakiinta. haddana fuqarada iyo masaakiinta lasii kala hormariyey 2 ajir haddaa rabta inaad isla hesho waxaad siin kartaa fuqarada iyo masaakiinta oo qaraabada ah. sababtoo ajirna waa kii qaraabada heshay, ajirka labaadna waxaad heshay ajirkii oo ah waajibkii oo ilaahay uu ku saaray oo aad gudatay. waxaa markaas imaanayso su-aal kale, waqtiyada la bixinayo waqtiga waajibka waa garanay ee waajibayso waa maqribka habeenka ciidda, sida habeen dambe oo kale hadday ciid noqoto waaye, hadday ciid noqon weyso habeenka kusii xiga waaye. laakiin haddii oo waajibkii la gartay waqtiga ay waajibaysay waqti munaasab ah mubaaxna ah sharcigana uu ogol yahay, haa culummadu waxay ogolaatay in horey loo bixiyo. qaar waxay ogolaadeen 2 maalmood ugu dambeeyo ama 3 maalmood, qaarna waxay dhaheen anytime ramadaanka gudaheeda waa la bixin karaa. inkastoo hadda lagu jiro maalmihii ugu dambeeyey, waana maalmaha ugu fiican waayo qofka inay gaartaa la rabaa. haddii lacag tahayna inay gaartaa la rabaa, haddii raashin uu yahayna inuu gaaro ayaa fiican waqtigan oo kale. su-aasha ugu dambeyso zakaatulfitriga oo dad badan ay qabaan waxaa waaye haddii oo aad rabto mid waa loo garta, macnaha qof inaad siiso koox ahaan zakaatulfitriga. koox ahaan ma u bixin kartaan, koox ahaan dadka ma loo siin karaa? taasna way banaan tahay. mathalan faamilka waxaa ah 7, ana aabi iyo hooyo iyo 5 ilmood waa $70. marka hal kooxle inaad siisaan oo $70 aad u niyeysataan waa jaa-is oo way banaan tahay. waxaa kaloo banaan dad kala duwan oo kala meel joogo inaad u kala dirtaan 20 30 oo kale, taana way banaan tahay. taas waa zakaatulfitri. ciid berito waxaan la jeedaa sabtiga waxaa la filayaa
qofbaa su-aal soo qor wuxuu leeyahay adigoo US degan 3 kiilo Soomaali ma ku bixin kartaa? qof Soomaaliya qofka saas ula jeeda umaleena Soomaaliya waa ku bixin kartaa, waa amri kartaa. waxaa dhihi kartaa 3 kiilo oo ha laga bixiyo, waxaan nahay 10, marka 10kii waxay noqonaysaa 30 kiilo. way banaantay taas. su-aal aad u fiican waay su-aashaasi. waxaa kaloo halkan qofka ku soo qoray fiqul mucaasir wax noogu tilmaamo u dhahay. fiqul mucaasir waa taan sheegay, waa lacag waa lagu bixin karaa. fiqul mucaasir macnaheedu waxaa waaye wax waqtigan la socon karo, nusuustan aan ka hor imaanaynin. nusuusta waxaa loola jeedaa wixii rasuulku uu dhahay aan ka hor imaanin. marka rasuulku wuxuu dhahaa la yiri iyadoo kooban tacaam oo ah raashinka markaasi dadka ay quudanayaan oo markaasi ay u baahan yihiin. marka lacagta say kusoo gashay waa soo koobayaa. waxaa waaye waxaa la yiri haddii dadka ay fogtahay Suuriya iyo Yemen iyo Soomaaliya in la gaarsiinayo, lacag haddii la diro ayaa ka dhaqso badan qofka in wixii la qaada in la diro. laakiin qofka wuxuu kaloo amri karaa sida walaashii ay weydiisay oo kale in la gado oo reerkii la siiyo. ta labaad quutul yawm waxaa lagu fasiray waxa markaas quud ah oo dadka u yaqaanin quud. marka maxaa noqon karo? baasta noqon karta, waagi hore ma ahayn. waa fiqul mucaasir waa iyadoo kooban. aan ku degdegno marka ciidi, maadaama waqti yar uu haray 14 daqiiqo. ciida marka hore asal ahaan kelmadda ciid waxa waaye caada yacuudu waaye, wax soo laalaabanayo oo farxad ah waaye. marka anaga ciid waxaa noo ah labada ciid oo waaweyn. waana inkastoo ciidan xoogaa farxadda laga yaabo inay ka yaraato sidii hore, sababtoo ah dadkii meesha weyn oo in lagu ciidaysto oo lagu tukado salaadii oo laysla dhunkanayay oo hag lays siinayay, wixii oo dhan maanta waa la diiday, lama samayn karo. waana sharcan waa diin ahaan looma samayn karo. ma ahan dowladdaa diiday, dowlad Maraykan hoos joognaa waa run, laakiin diin ahaanba looma samayn karo. waxaan loo samayn karin waayo rasuulka calaih salaam xadiis wuxuu ku leeyahay cudurka juudaamka oo ah cudurada degdega ku faafiya dadkana dila, markuu ka sheekeynaya wuxuu yiri ka carara sida loogu cararo libaax. markaad aragto inuu ku dilayo, nafta uu kaa qaadayo, waad ogtahay waa ka cararaysaa. sidoo kale cudurkan maadaama dilaa uu noqday, weli reer Minnesota Soomaalida hadduu ku bilowday, allahu aclam sababta. dad Soomaalida waxay bilaabeen inay wada kulkulmaan iyo wixii lamid ah. 2 dhimatay maalin dhexdaasi waxaa la ii sheegay dad ku dhintay. iyadoo sidoo kale sheekh hadda aan la hadlaya wuxuu idhahayay ani keliya waxaan ku tukaday 6 janaaso oo coronavirus ku dhimatay. lambarol ii sheegaa jiro oo kor inuu u socdo. marka Soomaali joog, halkan joog, adduunka meeshaad ka joogtaba, salaad ciid horta asalkaba nafta in ilaaliyo ma waajibba mise waa sunna mise waa mubaax. nafta in ilaaliyo waa waajib. waxaa jira wax la yiraahdo maqaasid sharciya oo shareecada ay aaminsantahay oo ah shareecada 5 waxyaalood oo shareecada ay ilaaliso. number 1 waxaa laga dhigay nafta, wixii nafta dhibayo. marka wixii dhibayo marka la leeyahay ma aha wixii dilayo oo kaliya, wixii dhibayo oo dhan in laga ilaaliyo. marka hadda xanuunka nafta wuu dilayaa. sidaa daraaddeeda qofka mu'minka ah dadaal uu sameeyaa. marka ani markasta waxaan dhahaa dadaal iyo duco aan israacino, waa inay isla socdaan. dadaalku waa maxay? marka wixii dhakhaatiirta ay faraan, maalan meesha dadkay ku badan yihiin inaadan tegin oo gurigaaga in dano ku keento waana gurigaaga inaad joogto. 2 haddaad baxaysid inaad xirato maaskiga. dadaalka maxaa waaye? duco inaad akhrisato bismillahi tawakkaltu cala allahi laa xawla walaa quwata illa billah allahumma inni acuudu bika an adilla oo udalla an azilla oo uzala an adlama oo udlama an ajhala oo yujhala calayhi. nabigu wuxuu yidhi qofkii akhrista wax dhibaya malaha ilaa uu kasoo laabanayo. bismillahi alladii laa yaduru maca ismihi shay'un fi lardi walaa fi samaa wahuwa samiicu alcaliim. inaad akhrisato ducadaasi. marka ducadan waa akhrinaysaa. dadaalkii sanka xero. haddaad meel tagto qofka u jirto 6 fiid markii aad ka danaysanaysid danaysiga iyo arrimahaaga hadday soo dhammaato gurigaaga kusoo carar adoon cudur wadan ilaahay idinkiisa. marka intaas waxay keenaysaa marka salaada ciidda waa kulan muslimiinta ay kulmayaan. 1 salaada ay kulmayaan, 2 farxadda ciidda ay kulmayaan. marka kulan oo dhan hadduu keenayo dhib, kulanka marka in la joojiyo waayo. marka nafta in la ilaaliyo waa waajib. salaada ciiddana waa sunna mu'akkada waa cinda ashaaficiya walmaalikiya. waxaana soo daliishadaan xadiiska nabiga. ninkii nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu yaa rasuul allah 5 waqti oo salaada oo aad dhahday waa waajib, waxaan ahayn oo waajib ah oo laygu leeyahay ma jiraa? mayuu dhahay rasuulka ilaa an tatawwac, inaad sunaysata maahina. marka maadaama salaada ciidda ay sunno tahay
وانا رون واي dadka qaar ku xiliyeen waa shaciira sunno kaliya maahan waa shaciira min shacair islam wax la rabo in la muujiyo oo dadka ay arkaan ama dadka isku yimaadaan sax waay laakiin hadda isku imaatinkii ayaa cudur ka dhalanayo sidaa daraaddeed maadaama cudurro ay ka dhalanayo isku imaatinkii marka waxaa waajib ah isku imaatinka in la joojiyo marka haddii salaadihii waajibkaa jumcihii la joojiyey oo la yiri jamcaha lama tukanayo salaad sunno ah min baab al-awla waaye in la joojiyo marka ciida waa in la joojiyo see farxada loo marka maadaama ciida rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiisa wuxuu leeyahay isagoo abubakar iyo asxaabta qaar la hadlaya wuxuu yidhi ina likulli qawmin ciidan wa ina alyawma ciidana oo kama qaala nabiy calayhi salaam ummad kasta ciid ee farxday leeyihiin anaga ciideena waa tan marka wuxuu noola jeeday ciidulfitriga iyo ciidii kale oo ah maaragtay ciid weyneeda marka anaga seen ku ciidaysanaynaa in barnaamij farxadeed guryaha ay diyaariyaan waay aabaha iyo hooyada iyo inta waaweyn oo ilmaha waa inay shir degdega caawa ay qaataan oo ah gurigeena guri ciid seen ugu dhigi karnaa marka waxaasoo dhan in la sameeyo marka maxaa farxadda la sameeya ciidda farxadda kow salaada ciid in la tukado horta aabaha hogaaminayo ama qof ka mid ah wiilasha hogaaminayo markuu hogaamiyo salaada ciidda iyadoo kown axkaamteeda waxa waaye haddii gabdhaha ay xayd qabaan ama caado ay qabaan waa dhinac fariisanayaan ducadii ka qayb galayaan ma tukanayaan ilan salaad ma tukan karaan daahir maahan maaragtay tii macnawiga ahaa iyo tii waajibka ahayd inay ka dhaqdaan ay sugayaan midda kale waxaa muhiim ah in oo dhammaantiin aan wada ogaano salaadan inay sunno tahay laakiin sunno mu-akada waaye oo waajib macnaha inkastoo culummada maaragtay fataawi badan ay jiraan xitaa daarul iftaa almasriya ee iftootay qofka hadday ka tagto keli inuu tukan karo laakiin asalka salaadan jamaca in lagu tukado waaye that's why xambaliyada ay u qabaan inay tahay fardu kifaaya alxanaabila saasay qabaan fardu kifaaya macnaheed waxaa waaye koox oo muslimiin hadday tukato inta kale way ka dhacaysaa hal madhaba waxay qabtaa inay waajib tahay salaada ciida waana laga xoog badan yahay madhabtaas waa xanafiyada waaye waxay qabaan salaada inay waajib tahay iyagoo adilooyin la imaanayo laakiin waa laga xoog badayaa adilooyinkooda marka salaada ciida qaabkii loo tukanaya waa 2 rakac ka kooban tahay salaada ciida 2 rakac rakacada koowaad oo 7 takbiiraad marka dhahdo allahu akbar waxaad leedahay allahu akbar 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 kadib faatixada suurad kala akhrinaysaa rukuuc sujuud waa soo laabanaysaa allahu akbar markaa dhahdo kusoo laabato dan 5 jeer ayaa waxaad leedahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar rukuuc iyo sujuud kadib markaasi imaamku istaagaya gurigu maadaama ay tahay khudbad ayuu jeedinaya oo aad u kooban khudbadaasi dhexdeedu uu fariisanaya sida jumcihii oo kale waa fariisanaya haddana uu istaagaya khudbada dhan wuxuu ka dhigi karaa 10 daqiiqo ama 7 daqiiqo khudbada waxaa asal ah in oo ilaahay lagu mahdiyo alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah nabiga in lagu saliyo iyo taqwada in la isxusuusiyo iyo farxadda ciidda iyo wixii kale waajibaad la isxusuusan karo kadib markaas duca ayaa ku xigto kadib markaas ciidda farxadda ciid inay bilowdo maxaa banaan in la sameeyo maalinta ciid 7 daqiiqo ay harta wixii su'aalo isku dayaan ka jawaabo salaatul ciid kadib haddaan bixi haddaan wax bixiyo ka waran xamanayo zakaatul fitri ula jeedaa salaada ciid kadib haddaan zakaatul fitri aad bixiso waa maaragtay maka gudayso zakaatul fitrigii waqtigeeda waa dhaaftay dembi miya haa dembi waaye marka qofka inuu toobad keeno waaye kadibna culamo qaarkood waxay dhaheen inuu toobad keeno markaasi wixii lagu lahaa uu iska bixiyo calaa kulli xaal maxaa qofka uu sameynaya dadka maxaa diintii ogoshahay oo xalaala oo mubaax ah waxaa mubaax ah nooc kastoo ciyaar ah sababtoo ah xadiis waxaa jiro oo maaragtay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waqtigiisii caddeynaya in waqtigiisii asxaabtii ku ciyaari jireen masaajidka gudaheeda ciyaaro hiddi iyo dhaqan ah maaragtay inay ku ciyaaraan oo caaisha xitaa ay fiirsan jirtay oo rasuulku uu dhihi jiray calayhi salaam waqtigaaga qaado daawo marka nooc kastoo ciyaar oo hiddo iyo dhaqan ah oo 3 shuruud leh culamada 3 shuruud waaweyn tilmaameen kow hadal oo aflagaada ama hadal aan diinta ogoleen intay hadlayaan dadka ciyaara inuusan ka soo bixin 2 inaan isdhexgelin ragga iyo haweenka in la kala ilaaliyo
saddex waxay dhaheen haddii maaragtay ciyaaro dhaadheer ama marka qaarkood ciyaaro dhaadheer waxaa jiro waqtiyo qaadanaya ama dadka aad ay ugu mashquulaya maalmaha ciidda maadaama ay mubaax tahay ay banaan tahay waxaa salaada waqtiyadooda in la ilaaliyo, waajibaadka in la ilaaliyo. gabdhaha gooni ma way ciyaari karaan? haa, way buraburi karaan nooc kastoo ciyaar oo farxad leh. ragga sidoo kale caaisho iyo maaragtay iyo gabdho ayaa jiro maaragtay heesa isla qaaday, nebigu wuu ogolaaday calayhi salaatu wasalaam. marka wixii nashiido oo xalaal ah oo ereyada ay hufan yihiin oo maaragtay durbaan raacsan oo farxad ah in la dhegeystana way banaan tahay, in la wada qaado way banaan tahay. habeenkaas maalmahaasi waa maalin farax waay, maalinta ciidda. marka waxyaalahaas oo dhan mubaax waay, waxaa la yidhaahdaa waxyaalaha mubaaxa ah. marka waana axaadiis aan soo sheegnay ayaa daliil u ah. waxaa kaloo imaan karta oo la isweydiinaya ka waran habeenkaasi dadka inay wada baxaan ay wax soo wada cunaan. maqaayado qaarkood waa la ogolaadaa la yiri in la baxo haddii qawaaniinta ay ilaalinayaan, taas wax dhiba kuma jiro. haddii kalena raashinka in lasoo gato guriga lagu cuni karaa. xadiis waxaa jira rasuulku u dhahay calayhi salaatu wasalaam maalmaha ciid waxa waaye ayaamul ciid, xadiisku wuxuu leeyahay ayaamu dikr, maalmo oo waxa waaye dikriga takbiiraadka oo maaragtay aan idin xusuusinayo. takbiiraadka waxa waaye waxaa la aqrinaya salaada ciid, salaada maqribka ka bilaabmaysa oo qofka in takbiiraadka siiqooyin kala duwan ama qaabab kala duwan loo aqriya. allahu akbar kabiira walxamdu lillahi kathiira wasubxaana allahi bukratan waasiila. allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabiira walxamdu lillahi kathiira wasubxaana allahi bukratan waasiila. allahu akbar walilahi alxamd. marka qofka inuu ku celceliyo, asxaabta jidadka markay maraya ku celcelin jireen. marka haddana sidoo kale qofka guriga marka lagu jiro in kor loo qaado, in lagu celceliyo takbiiraadka. ayaamu dikri waaye, ayaamul bicaal waaye, in familka ay wada joogaan, familka inay farxaan. qof ayaa su-aal isoo weydiiyey intaan qolalka ama duruusyada meelaha kala duwan aan akrinayay. wuxuu dhahay in banaanka loo baxo inkastoo la xadiday haddana ma banaan tahay meelaha baarkiga oo kale in la tago oo barnaamijyo lagu samaysto. sidoo kale meesha sharcigeeda fiiri, meeshaa joogto haddii la ogol yahay oo la kala fogaanayo ama qoyska keliya meel ay ku wada kulmi karaan iyagoo raashinkooda cabitaankooda waxaaba ay wataan, dhibna uusan kasoo gaarin dad kale oo agagaarka ah, wax dhiba iyadana kuma jiro. su-aalo qaarkood lasoo qoray waxaa la yiri su-aal waa ciida zakaatulfitriga waa laga hadlay. salaada ciidda la iska dhaafi karaa? su-aal fiican waay. okay, salaada ciidda horta waa sunno. marka sunno micneheed waxaa waaye waxaa jirta axkaamul khamsa diinteena ay qabtaa. kolay 2 daqiiqa ayay soo hartay, waa soo koobaya. axkaamul khamsa waxa waaye qof kasta oo mu'mina oo muslim ah shantan macaanidooda inuu fahmo waaye. waxa insaanku uu sameynaya marna waa waajib, marna waa sunno. sunno macnaha rasuulka laga soo gaariyo, rasuulka amray in la sameeyo, waa sheegi doonaa macnaheeda. marna waa mubaax, mubaax waxa waaye wax xalaal ku ah. marna waa karaaha, waa wax la diiday laakiin dembi aan kaaga imaanin. marna sida oo kale salaada cish in qofka habeenkii uu daaho waa la diiday laakiin dembi ma kaaga imaanayso. in hore loo seexdo ayaa sunno ah. midda shanaad waa xaraam. marka intee hoos imaanaysaa salaada ciidda? salaada ciidda hadday waajib tahay kama tegi kartid, marka waajib ma aha. maxaa ku xigo sunna? sunna waxaa waaye haddaad ficil samayso ama qowl aad ku hadasho aad ajir ka helaysid. haddii aad samayn weyso ama aad ku hadli weyso ajirkaas uu kaa baaqanayo. markii qofka salaada ciidda ka seexdo ama ka baaqdo dambiile ma ahan, laakiin ajirka faraha badan oo kumaan kun ah uu heli lahaa ma helayo. waa intaas oo iyadoo kooban. su-aal kale sheekh wuxuu dhahay ciidda la iska dhaafi karaa? waa ka jawaabay taas. sunno miyaa mise waa waajib ama waa faral? waa sunno ciidda. maaragtay waxaan hadda tafaasiil ku sameeyey meeshay soo hosgelayso. waxaan kusoo gabagabeynayaa ducooyin oo waxa la akhrista maalinta ciidda. maalinta ciidda waxaa la isku duceeyaa taqabbal allahu minna wa minkum. maaragtay min saalix acmaal. qof markuu kaa hor yimaado ama qof markaa teleefon u diraysid waxaad leedahay taqabbal allahu minna wa minkum, anaa ilaahay idinka aqbalo. waxaa loola jeedaa soonkii, salaadii ciidda, wixii cibaada soo samaysatay idinka iyo annagaba, iyo wixii saalix acmaal oo wanaag iyo khayr iyo sadaqo aan soo baxsanay
ducadaasaa jirto marka iyadana waa sunna in la akhristo. maxaa kaloo sunnaa oo lama horaan ciid in la ogaado, waxaa kaloo lama horaan in la ogaado ciidda subaxdii inaad qubaysato intaan salaada la tukan, ama duhurkii marka waxaa loo jeedaa duhurka intaan la gaarin. salaada horta goormaa la tukan karaa taasna waa xilmaan. waxaa la tukan karaa qoraxda markay soo baxdo ilaa duhurka inta laga gaaray inta udhexeysa salaada ciidda la tukan karaa. salaada duxada booska salaada ciid maka gudaysa ama maka gudayso. salaada duxada waa sunno gooniyaa loo tukadaa, ciiddana waa sunno gooniyaa loo tukadaa. maxaa la sameeya intaadan salaada tukan ka hor? waa qubaysanaysaa qubays fiican, dhar cusubaa qaadanaysaa ama dhar nadiif ah. 3 dharka in perfume uu lahaado, reerka maadaama hal meel ay wada joogaan, rag iyo haween perfumeka way qaadan karaan, waayo dibadda haweenka ma usoo baxayaan. maxaa kaloo oo sunno ah, waxaa sunno ah in qofka bashuush uu noqdo. bashuush waxaa qofka qof farxad badan, maaragtay maantaas carada waa xaraam, xanaaqa waa xaraam, maaragtay wax walbo qofka uu sameynaya inuu ahdo wax qof kale farax gelinayo. marka awal asalka qofka muslimka waxay ahayd wafii tabasumika liwajhi akhiika sadaqa, walaalka oo u qususho oo dhoola cadaan aad samayso markii uu ku arko, markay aad aragto sunnay ahayd. hadda laakiin waxa waaye waajib isku bedelaysaa. maxaa dhacay? farxad in la helaa waajib ah ilmaha marka, iyo waxyaalaha kale intaan ilmaama ilmaha in laga farxiyo, maxaa ilmaha inay dareemaan wax alla waxay ku dareemi karaan ciidda inaan sameynay ilmaheena. maaragta dharka loo soo gadaayo, haddii dhar cusub ay haystaan dharkaas cusub inay ku labistaan. markaasoo dhar in lasoo gado qasab maaha, dhar nadiif inay ku labistaan, alaab ay ku ciyaaraan in lasoo gado, in lala ciyaaro. maaragta guriga barxad hadduu leeyahay in guriga banaankiisa ay ku ciyaaraan familkii, dadka hawsaska leh oo kale. intaasoo kusoo koobayaa. waqtigii oo laygu talagalay wuu dhammaaday. marka waxaan idinkugu ducaynayaa 3 duco oo waaweyn. 1, wax alla waxaan soo shaqaynaynay maalintii 1aad bisha ramadaan ilaa berito, oo hadday ciid noqoto habeen dambe ama maalinta ku xigto, ilaah naga aqbalo. maalinta ciidda shahaadooyinaa la bixiyaa. maalinta ciidda shahaadadaasi la bixiyo, malaa'igta ayaa qaybinayso, ilaaha usoo dhiibo. waxaana la siiyaa oo keliya dadkii soomay dhammaadka, bilowga ilaa dhammaadka. marka guulaysta intii soontay, inta kale khasaara ku dhacday. qofka aan soomin isagoo kari kare caafimaad qabay, khasaaro weyna ku dhacday qofkaasi. ilaahay ha hanuuniyo. marka tala 1aad ilaahay naga aqbalo camalka aan samaynay oo dhan bilowgii ilaa dhammaadka. midda 2aad, markaan ka baxno bisha ramadaan, ilaahuna waafaji 11 bilood soo socdo cibaado san iyo cumri san. maxaa loola jeedaa? waxaan samaynan oo dhan ilaahuna waafaji, waxaad raali ka tahay inuu yahay. midda 3aad, waxaan kugu duceynayaa inta i dhagaysanayso dhan, dhammaantiina ilaahay idin xifdiyo. cudurkan oo xanuunka ah oo socda iyo nooc kasta oo cudur ah ama wax walba wax dhibayo oo la arko ama aan la arkin, ilaahay ha idinka xifdiyo. noloshiinoo dhan nolol barakaysan oo albaabada khayrkoo dhan oo idiin furan, ilaahay idin waafajiyo. aamiin aamiin aamiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.